السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد kanaalkeena mar labaad iyo mar saddexaadba waa anigoo Yaasiin Qaasim Cali oo idin tabinaya barnaamijka waana taxanaynay la magacaabay haliyada ururka Israel qaybtiisii afaraad. waxaan muuqaalkani kula fagolaynaa taariikh nololeedkii mudan Maxamed Xirsi Nuur ee ahaa xubintii labaad ee ururka dhalinyarada Israel. intaanu muuqaalkan guda galin fadlan subscribe saar channelka laakiin taabo siina share garay. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن. mudan Maxamed Xirsi Nuur waxa uu ku dhashay tuulada Mareega oo ka tirsan degmada Ceeldheer 1915. waxa uu ku barbaaray guriga waalidkiisa isagoo helay barbaarin wanaagsan. kadib reerkooda waxa ay u wareegtay magaalada Muqdisho 2 sano kadib dhalashadiisa. quraanka kariimka ah waxa uu ku bartay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wardhiigle. waxa uu macalin kale u wareejiyo waxa uu xifdiyay inta badan quraanka kariimka ah. kadibna waxa uu u wareegay masjidka si uu u barto culuumta diiniga iyo luqadda Carabiga. 1930 waxa uu ku biiray iskuulka Talyaaniga u lahaa. subaxii waxa uu maamul jiray maqaaxi u lahaa. galbihiina waxa uu aadi jiray iskuulka oo uu ka bartay luqadda Talyaaniga 3 sano oo uu dhiganayay iskuulka. kadib waxa uu leexday dhanka ganacsiga kaas oo uu aad u jeclaa. waxa batay safarida ganacsiga ee uu ku tagay jiray magaalada Cadan. sidoo kale waxa uu wakiilka qaar ka mid ah ganacsatadii Muqdisho. muddo kadib waxa uu u wareegay magaalada Addis Ababa halkaas uu ka sii watay ganacsigiisa. wuxuuna halkaas ku nagaaday 3 sano ah. wuxuuna ahaa wadani khaalis ah, khayr jecel, saaxiibo badan leh. 1941 markii ay Ingiriisku qabsadeen Soomaaliya waxa uu u safray mudan Maxamed Xirsi Nuur dalka Kenya arrimo ganacsi aawadeed. kadib markii uu ka soo laabtay Kenya waxa uu ku nagaaday Muqdisho asagoo sii watay ganacsigiisa. waxyaabaha uu aad ugu hamiyi jiray waxa ka mid ah aasaasidda urur samafal ah oo ay ku kulmaan culimada gaar ahaan ragga waaweyn laguna oogo shacairta islaamka ayna isugu weydaarsadaan fikradahooda. waxa kale uu aad u jeclaa kuna taami jiray unkida shirkado ganacsi oo waaweyn. wuxuuna markii dambe Ilaahay u qadiray in uu nasiib u yeesho in uu ka mid noqdo shaqadii wanaagsaneed ee dalkiisa lagu xoreeyay. waxa uu ahaa mudan Maxamed Xirsi Nuur xubintii labaad ee xubnihii 11 ahaa kuwaas oo aasaasay xisbigii midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. waxa uu ahaa nin shaqadiisa ka adag, firfircoon, naftii hore ah oo maslaxadiisa gaar ahaaneed ka jeclaa wadankiisa, daacadna u ah dadkiisa, una qiiraysan diintiisa iyo dalkiisa. markii uu qiiroodo waxa uu ahaa mid aan xakameyn karin naftiisa. 1954 waxaa loo magacaabay xafiiska tirkoobka jinsiyadaha balse waqti yar kadib wuu iska casilay sababo la xiriira in la tuhmay. kadib waxa uu u wareegay bangiga lagu magacaabo jiray Tasliif isna kuma uusan nagaajin oo sanad markii uu ka shaqeynayay ayaa xilkii laga qaaday kadib markii lagu tuhmay arrimo siyaasadeed. wixii xilligaas ka dambeeyay waxa uu guud ahaanba iska dhaafay shaqadii dawladda waayo waxa gacanta uga jirtay isticmaalkii wadanka haystay. waxa uu u weecday dhanka ganacsiga. halkaas ayaan ku soo koobaynaa taariikh nololeedkii mudan Maxamed Xirsi Nuur. wassalaamu calaykum.